إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا. الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، waxaynu soo dhow foodana inagu soo haysa bishii barakaysnayd ee Ramadaan. allana tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida nicmooyinkiisa iyo galladihiisa aan la koobi karin inuu u sameeyey addoommadiisa wakhtiyo ay cibaadada iyo taacada ku tartamaan, isagoo addoonka laga rabo xilli walba iyo bil kasta iyo sannad walba iyo xilli walba inuu ilaahay caabudo, ayaa haddana waxaa laynoo sameeyey wakhtiyo gooni ah oo loogu talagalay inaan gallo tartan siyaado ah laga faa'iidaysto. bishii barakaysnayd ee Ramadaan baa ka mid oo inugu soo aadan. waa xilli rabbi tabaaraka wa tacaala uu dhexdiisa dhigay barako iyo khayraad fara badan. waa xilli rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hiba loo siiyey, hiba qaali ah oo ilaahay nebi maxamed ummaddiisa uu siiyey weeye salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sidaas daraaddeed wakhtigaa qiimaha badan ee inugu soo socda ee muddada kooban ay ka laaban tahay inaad ku baraarugta weeye una diyaar garowdo saad uga faa'iidaysan lahay. shayga ugu muhiimsanee maanta ku hor yaallana kaa isagaa wax naftaada ma ah, ganacsigaagana ma ah, xoolahaagana ma ah. shayga ugu muhiimsanee maanta miiska kuu saarani waa Ramadaan, seed uga faa'iidaysataa waay. dhowr qodob aan tilmaanno oo loo baahan yahay intayna bishu soo gelin inaynu meel saarno. qodobka koobaad iyo tilaabada koobaadi waxay tahay inaynu ogaanno qiimaha iyo qadarka ay leedahay bishani leedahay. jaaniskani intuu la egyahay iyo qiimaha iyo qadarka uu leeyahay inaga mudan yahay inaynu ogaanno waa laga maarmaan. لأن كل شيء سيدا وكوغو قيمة سيئة أيات دادالك آتكو بحين يسايئون نقضاه. وحين يقفل القضب كأساقا النبي جينا صلوات ربي والسلام عليه ملك الجبريل باويمت مركزه حكويري هفو قادو ونحريس إلهي هكدركو هلقدركيو روح رمضان أصوق قلي oo Ramadaan dhamaado korkiisa ku dhamaaday asagoon loo dambi dhaafin. wax loogu dambi dhaafo muusa la imaanin. soonkii bisha, salaadihii, sadaqadii, umradii, quraan akhriskii, cibaadaadkii dambi dhaafka laga helayay kamuusan faa'iideysanin. meelahaasuu taagtaagnaayo waqtigiisa ku lumiyay. jaaniskii baa dhaafay. ilaahay agtiisa muxuu ku leeyahay? waa dayra way kaas. ilaahay waa dayri, waa nin la fogeeyay. sababtuna maxay tahay? rabbi tabaaraka wa tacaala hadduu nicmo ku guddoonsiiyo ku siiyo ood nicmadiisa ka shukrin weydo oo siday tahay aad u guddoomi weydo, natiijadu waxa weeyaan wala in kafartum inna cadaabii la shadiid. in markaas lagu ciqaabo lagu fogeeyo waa. sidaas daraaddeed qodobka koobaad inaynu ogaano bishan inaysan bilihii kale la mid ahayn, waqtigeedana uusan ilala noqonin sida sanadka intiisa kaloo kale way ka duwantahay, wayna ka socanta. waa qodob iyo tilaabo muhiim ah. qodobka labaad waxa weeye ee mudan inaynu baraarujino in muddada gaaban ee bisha inooga laaban aad ku ducaysato inuu ilaahay ku gaarsiiyo oo caafimaad kugu gaarsiiyo, nabadgelyo kugu gaarsiiyo. sidaasi waxa ahaan jiray akhyaartii iyo salafkii inaga horeeyay ridwaanullaahi calayhim. 6 bilood oo Ramadaan ka horeysa ayay ilaahay weydiisan jireen ilaahu Ramadaanna gaarsiiy. waa jaanis weyn.
inaad gaadhi doontana ma hubtid sax saacadaa ka laaban waqti kooban baa ka laaban laakiin damaanad ma haysataa inaad gaadhi doonto maya imisa walaalaheen ahaa oo ramadaankii hore inala soomo inala salaado inala cibaadaystay oo jaaniskan mar labaad aan la siinin adigana waxaa dhici karta inaadan gaadhin haddaad gaadhana waxaa dhici karta ka ku xiga inaadan gaadhin sidaas daraaddeed waa in aad ilaaha weydiisato inuu ku gaadhsiiyo bishan adoo nabad qaba ammaanna ku siiyo qodobka saddexaadi wuxuu yahay bishu markay dhalato nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaad ducaysato iyadana oo wuxuu ku ducaysan jiray nabigeennu sal alla alay wasalam ducadaan sheegnay allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni waaliimaan ilaahu bisha noogu dhali iimaan iyo ammaan nabadgelye iyo islaam tawfiiq aadna waafajiso waxaad jecesheed raalli ka tahay markaasuu wuxuu dhihi jiray biley rabbigaa iyo rabbigay waa allah tabaaraka wa tacaala ducadaasi qiimahay leedahay waxa weeye bishan bilataya kugu soo aaday in khayrkeeda lagu waafajiyo ilaahay ku waafajiyo kuna tuso inaad samaysana kuu fududeeyo ayay ducadu ku saabsantahay qodobka xigaayo wuxuu yahay bishii baad soo gaadhay way noo bilatay nabad iyo nabadgelyaad ku soo gaadhay caafimaad baad haysataa ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad nicmada uga shukrido ramadaan inaad soo gaadhay adigoo nabad qaba maxaa yeele shukriga nicmada rabbi aad garatay ee aad ka shukriday wuxuu keenayaa in siyaado lagu siiyo lain shakartum la asiidannakum waa lagu kordhin nicmadii baad garatay waa nicmo diineed waad ka mahad celiso ilaahay baad u aqoonsatay allah tabaaraka wa tacaala nicmooyin kaloo diineed buu kuugu darayaa kuugu siyaadinaya sidaasi waa qur-aanka kariimkaa siduu noo tilmaamay oo nicmo markaad ka shukrido tu kalay jiidanaysaa oo wadataa markaad taa ka shukridana kuwo kalay wadataa oo jiidanaysaa wahaakada nicamku waa iswataan macaasida iyo dunuubta iyo kufraankuna waa iswataan marka shukri ilaahay nicmadiisa ka shukriyo qalbigaaga ku weynaato qodobka xigaayo wuxuu yahay ee baraarujinta mudan bishii inoo soo socoto bishu markay dhalato iyo dhalashadeeda iyo soo dhowaynteeda waa inaan ku faraxno waa inaan bishaaraysanno waa marti aan aad u jeceshahay waalidkaa oo wakhti dheer kaa maqnaa xaaskaadiioo wakhti dheer aydaan is arkin kulanka kuugu hormayseed kulmaysaan soo aad uma faraxsanid laa shaka fii dalik tabtahij sidaas daraaddeed waxaa ka qiimo badan waxaasoo dhan bishan oo nabad kuugu soo gashay marti qiimo badan weeye oo kuu timid waa inaad martisoor fiican martisoorto soo dhowayso kuna faraxdo imaanshaheeda nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay bishu soo gelayso saxaabadiisu u bishaarayn jiray wuxuu dhihi jiray bishii ramadaan baa idiin timid oo soo gashay waa bil baraka iyo khayr badan khayrkeeda iyo barakadeeda la badiyey allah tabaaraka wa tacaala soonkeeda ayuu waajib idinkaga dhigay iridihii jannada ayaa la furay iridihii jaxiimo iyo naartana waa la xidhay shayaadiinta kuwoodii khayrka darnaaye madaxa adkaaye sharka ku mudxay ayagana waa la xidhxidhay waa la katiinadeey habeen baa ku jira bishaas ka khayr badan 1,000 bilood ruuxii khayrka habeenkaa laga qadiyana isaga ayaa xaqiiqo wuxuu yahay ruuxa qaday oo wanaag oo dhan ka qaday nabigeennu waa u bishaarayn jiray marka saxaabada war wax weyn baa yimid war ka gaca fadhiga war baraaruga marka inaad bishaaraysato ood ku farxdo allana qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay iimaanka islaamnimada qur-aanka ku farxa waa fadli alle qul bifadli illaahi wa biraxmatih waa khayr aakhiriya adduunba wey allah naxariistiisa iyo fadligiisa faliyafraxuu ha ku farxaan huwa khayrun mima yajmacuuna asaga ka khayr badan waxaanay uruurinayaan ee adduunyada ah kuraasta aad haysato milkiga iyo boqortooyada xoolaha jeebkaaga iyo akawnkaaga ku jira naftaada lafteeda
caruurtaada iyo guryahaaga kulli waxaa kaaga qiimo badan hal camaloo aad janno ku hesho ama ilaahay cadaabkiisa kaa badbaadiya huwa khayrun mima yajmacuun taasi waxay cagsi ku tahay in badan oo muslimiinta ka mida walilasaf khaasatan dadka caadaystay adduunyada iyo maladaadkeeda iyo shahawaadkeeda ilaahay hana asture bishii ramadaan baa soo dhow marka la yidhaahdaba waa naxaya waa murgaya cidhiidhi buu dareemaya war miyayna kugu filayn 11 bilood baad cunaysa oo aad cabbaysa oo aad raaxaysanaysa oo saad doonta samaynaysa ayaduna waa ayaam waa maalmo kooban oo tirsan wey war maxaad ka nixiyo ku haysta waa caafimaadka jidhkaaga waa aakhiradaadii iyo jannadaadii iyo daartaadii aakhirood dhisanayso waa faa'iidooyin bulshada u soo noqonaya ayadoo dhan waa fawaa'id aakhiriya adduunyo waaye maxaad ka nixi marka inaad ku faraxdo waa inaan bisha ku faraxna imaanshaheeda inaan ka naxno ma aha qodobka xigaayo wuxuu yahay loo baahaya inaan ku baraarugno bishan waa inaad qorshayso oo aad nadaamsato dejisato qaabkaad uga faa'iidaysan lahay bini aadamku kama soo haro takhtiidka iyo qorshaha iyo nadaaminta kama soo haro habeenada iyo maalinta bishu ka kooban tahay saad uga faa'iidaysan lahayd qorshaheeda deji kadibna yuusan jaanisku si fudud kugu dhaafin waxay kugu kaalmaynaysaa in aad sidaad rabtay wax u hesho bitawfiiq illaahi tabaaraka wa tacaala miaal maalan haddaan tusaale idin siiyo waxaad rabtaa inaad bisha ramadaan aad qur'aanka dhammayso 5 goor waa go'aan soo maaha go'aankaasi waa inaad u dejiso wakhtigiisii maalintii imise goor baad rabtaa inaad fadhiisatood qur-aanka akhrido iyo habeenkii muddo walbana intee juz baad rabtaa inaad akhrido qorshe degan oo isku habaysan oo nidaamkii go'aankaad dejisay waafaqsan ayaa markaa kuu soo baxaya laakiin si fawdo oo hamajiya haddaad bisha isaga gasho barnaamij kale oon qorshahaagaba ku jirin baa ku kaxaysan doonta kadibna bishii waaba dhammaatay bedelka aynu adduunyadeenna qorshe iyo nidaam u samaysanayna tanaa ka mudan ganacsadada iyo tujaarta waa idinka arkay bilaha suuqu dhaqdhaqaaqayo ee ganacsigu fiican yahay intaan la soo gaadhin bilaha baa qorshe la sii dejinaya qorshihii baa badeecada lagu keenaya bakhaarada la buuxinaya nin walba wuxuu is leeyahay jaaniskana yuusan si fudud kugu dhaafin waar miyayna ka mudnayn inaynu aakhiradeenna aynu qorshe u dejisanno iyo saynu jaaniskan uga faa'iidaysan lahay wakadalika ninka siyaasiga ee kursiga rabaay markuu go'aansado inuu kursi raadiyo qorshihii buu dejinaya shirar reehebel la shir kooxebel raadi dhaqaalihii isku hagaaji xagga wad yani waxaa ka horreeya qorshayntaa ka horraysa intaan tilaabada qaadin qorshayso qaabkaad bisha uga faa'iidaysan lahay waxay kuu fududaynaysaa hawsha iyada qodobka xigaaga wuxuu yahay go'aan qalbigaaga ah iyo doonitaan dhab ah qalbigaaga ha laga arko allah tus tabaaraka wa tacaala qalbigaagana ha ka arko inay go'aan kaa tahay inaad bishaa faa'iidaysan rabto daaca inaad rabto aakhira inaad rabto inaad ridihiisa raadinayso go'aankaa qalbigaaga ha lagu arko maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala addoommada wuxuu wax ku siiyaa kolba qadarka go'aankooda iyo niyadooda xadiidkii nebiguna waa kii ahaa innama alacmaalu binniyaat niyadaada iyo qasadkaaga buu alla fiirinaya xadiidkii waa kii ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yandur ilaa quluubikum waacmaalikum allah meeshuu kaa fiirinayo waa qalbiga maxaa qalbigaaga ku jira haddaad rabto inaad wakhtiga kaga baxdo laalaab kaga baxdo oo aad wareegaysato ama adduunyadaadaba u badato qalbigaaga hadduu sidaa ku jiro wixii qalbigaaga ku jiray baad ilaahay ka sugi tabaaraka wa tacaala biidni illaahi tabaaraka wa taala saas daraaddeed go'aan oon shakiya laalaab ku jirin oo saadiqa ilaahay ula imo faidaa cazama almru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu man sadaqa allaha sadaqahu tabaaraka wa tacaala ruuxii ilaahay run kula dhaqma ilahay run buu kula dhaqma
go'aan dhaw marka la imo qodobka xigaay wuxuu yahay bishii baa soo socota intayna bishu gelin waxa la rabaa inaan ku dadaallo sidii aynu u baran lahayn ahkaamta bisha ku saabsan u fahmi lahayn sabisha looga faa'iideystaa soonka iyo ahkaamtiisa salaada taraawiixda iyo ahkaamteeda sadaqa hadaad baxsanayso iyo ahkaamteeda hadaad umraysanayso iyo ahkaamteeda quraanka akhrintiisa iyo aadaabtiisa waa inaad barato oo hadaba ku dadaasho laana waxa weeyaan waxa aad samaynaysa haduusan cilmiyeysnayn waa tacab khasaar ilaahay agtiisana waxba kaga heli maysid cilmiguna wuxuu asaas u yahay aqeedada iyo hadalka iyo ficilka wax kasto la sameeyo cilmiga asaas u ah fa'lam annahu la ilaha illa allah saas daraadeed wa allah wuxuu ka dhigay awwal fariida ala kulli muslimin wa muslima waajibka ugu horeeya ruuxa muslimka rag iyo dumar basaaran waa inuu barto sidoo uu cibaadaysan lahaa marka hadaad akhrin karto kutubta akhri wixii laga qoray akhri hadaadan akhrin karin oo taalacan karin dhageyso wixii laga duubay hadii ay wax ka qarsoomaan oo mas'ala kugu adkaato ha iska qardajeecine ehelkeedii culimada weydiyo la carar fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun si ad allah u aabudo ala ilmin wa basira aqoon iyo garasho saad ugu aabudo ee aadan jahli ilaahay ugu aabudin in badan oo caamada kamida walil asaf waa dadaalayaan laakiin marar badan dadaalkoodu meel khalad ku dhacaya waxagaajiyay isleeyihiin ayagoo ilaahay u dhawaada waxa laga yaabaa inay ka fogaadaan laana wixii ma garanaysidba ya salli irji' fasalli fa innaka lam tusalli baqutala ka'naqo salaada ku laabo tuko wixii hore tukatay waxa ma ahayn waad iska foorfoorasatay mooy salaad ma tukan laana salaadaadu ma cilmiyeysnayn صونك إيا هبينك استاقي سنة نبي نوحي صلوات ربي والسلام عليه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش تضبطنا الصوما صونك وذا كهل ما يوحان أون إيا قاتشك أهي وحبي لها إتيس أميان ويقول رفاضين والرب قائم ليس له من قيامه إلا السحر تضبطنا هبينك تاقن والتراويح تاقن وصلاة الليل تاقن استاقا يا الرفي waxay ka helayaan kaliya inay soo jeedeen oo daaleen oo rafaadeen laakiin ajir ma laha war maxay ku dhacday waxba ka khaldan ama niyadii iyo ikhlaaskii ba ka khaldan ama amalkaaga waafaqsanayn hadiyii nabi maxamed sallallahu rabbi wa sallam alayhi saas daraadeed waa lagu soo diidaya cilmiye iyo cibaadada qodobkaasi waa qodob weyn qodobka ugu dambeeya ee mudan inaan tilmaanay isagana wax weey bisha soo gelitaankeeda ka hor markay soo gasho dhamaadkeeda waxaad ku dadaashaa inaad toobad keento ilaahay u soo laabo wixii dambi aad gali jirteed caadaysatay joojiyo ka go wixii hore kaaga dhacay ka qoomamood oo qalbigaagu ha ka gubto go'aanso inaadan dib dambe ugu noqonaynin ilaahay dartiina u sameeyo markaad saa u toobad keento toobad rasmiya al keento qalbigaaga wixii daxal fuushay mugdigii fuulay wasakhdi fuushay kulli waa la daahirinaya qalbigii waa dhalaalaya waa xoogaysanaya socdaalka uu xagga rabbi ugu jiro ayuu wuxuu u helayaa awood u helayaa daacadii buu ku sabrayaa quraanka akhriskiisu ma dhibayo salaada intii la taagnaadaba waa taagnaanaya waa sabraya soonka iyo dhibkiisa waa ku sabraya laana waa qalbi xoog badan oo iftiimaya waa iimaan xoog badan baa ku jira saastaradeed baa nabiga nuuxu sallallahu rabbi wa sallam alayhi adoonka markuu dunuubta galo qalbiga wasakoobo daxal fuusha markuu soo laabto ka soo laabtana qalbigiisa waa la soofeeyaa waa la sifeeyaa waa la daahiriyaa soomaart marka qalbiga daahiri saan soo sheegnayba meesha ilaahay kaala mucaamaloonaya waa qalbiga haddaad aragto adoo caajsan cibaadadii kugu adagta jiitamayo cagjiidaaya rafaadsan oo cibaadaysan la aafadu xagee ka socotaa qalbigaaga ka socotaa kan khayrka u hormaray ee khayrkii ka horeeyana arintu waxay ka socotaa qalbigiisa ka socotaa baada tawfiiq illaahi tabaaraka wa taala ala wa inna fil jasadi mudghah
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. marka qalbiga hagaaji nadiifi uqdada ka saar carada ka saar xumaanta ka saar shahawaadka jacaylkooda ka saar shubahaadka ka saar qalbiga nadiifi wixii galayna ka toobad keeno daahiri si aad bishan si qiimo badan uga faa'iideysato daacadka rabbiga kala gadisanna aad qaybtaada uga qaadato. khitaamka wax weeyaan iyo gabagabadu waxaad isku daydaa acmaasha bishan taalaay way farabadan tahay mid walba qayb ku darso soonkii waad soomanta salaadiina waad salaadaysaa sadaqada wuxuun ku darso haddaad cumraysan karta gal quraanka akhriskiisa ka qayb qaado salaadii habeenkii ka qayb qaado khayroon afurinta dadka sooman ka qayb qaado meel kaliya ha isku koobine meel walba inay lagu kuugu jiri karta isku day waxayna nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi a'maal farabadan oo kala duwan markuu sheegay ruux hal maalina inta isla sameeyay janna loo ballan qaaday buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka majaal walba khayrkiisa iyo wanaaga yaala inta ugu badaneed ka qaadan karta ka qaado si ilaahay ku saamaxo tabaaraka wa taala qortaada naar uga xoreeyo jannadiisana kuugu waajibiyo iyo ridihiisa tabaaraka wa taala sallu wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith ruddana ilayka raddan jamila allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan ووفقنا فيه من الخيرات والطاعات ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام.